السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورمرتيات كشروينها مذوجة هيبة قرن سداد جنايو لبدا كون إيو لحية لباتنكا مقدشة الصومالية مذوجة هيبة قرن أيا قبصة شروينة عاو أي تاريخ تاهي سداد جنايو لبدا كون إيو لحية لباتنكا وحاشر قدومية مدن عبد الرزاق خليف أحمد وحنا كسو قيب قلياش أساسي وحنا كسو قيب قلي أساسياش كلا مدن عبد فارح شردون سعيد دكتور محمد أبوكر دعالة إسلام مدن عبد كريم حسين قوليد مدن عبد آدن هوسو مدن فارح علي الشرة مدن دعالة آدن محمد مدن دكتور قوليد صالح بره iyo mudane Fahad Yaasiin Xaaji Daahir shirweynaha ayaa soo bandhigay dastuurka iyo barnaamijka siyaasadeed ee midowga haybad qaran sidoo kalena waxaa si qoto dheer loo lafaguray xaaladda guud ee dalka gaar ahaan adkeynta midnimada iyo ilaalinta madaxbannaanida dalka oo duulaan qaawan lagu soo qaaday waxaa kale oo la iftiimiyay ahmiyadda ay haatan dalka u leedahay maareynta marxaladda kala guurka ah oo kala guurka oo ka maqan yihiin heshiisyo siyaasadeed oo hubinti la'aanta ka saara dalka sidaa daraadeed shirku wuxuu bogaadinayaa guulaha ay ka gaareen la dagaalanka kooxaha xaq jirka ah ciidamada qalabka sida ee heer federaal iyo ciidanka daraawiishta Puntland iyo sida nafurnimada leh oo ay ugu taagan yihiin sugidda amniga dalka labo shirku wuxuu cambaareynayaa aqoonsiga sharci darrada ah ee ay Israa'iil siisay maamulka Somaliland taasoo ah xadgudub ka dhan ah madaxbannaanida Soomaaliya iyo qawaaniinta caalamiga ah saddex shirku wuxuu adkeynayaa in uusan marnaba gorgortan ka galaynin midnimada dhuleed iyo madaxbannaanida siyaasadeed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya afar shirweynuhu wuxuu qabaa in arrimaha masiiriga ah ee dalka sida difaaca madaxbannaanida jamhuuriyadda lagu garab siiyo dawladda federaalka Soomaaliya wuxuuna madaxda qaranka ku boorinayaa inay iyaguna la yimaadaan qorshe iyo tanaasul midaysan oo midayn kara shacabka Soomaaliyeed shan midowga haybad qaran wuxuu u arkaa in xalka dalka uu ku jiro doorashooyin heshiis lagu yahay oo lagu qabanayo marxaladan kala guurka ah lix midowga haybad qaran wuxuu ugu baaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya inuu ixtiraamo dastuurkii lagu heshiiyay 2012 ka laabto wax ka bedelka sharci darrada ahaa ee uu sameeyay uuna si taxadar leh u dhageysto baaqyada ka imanaya mas'uuliyiinta iyo indheergaradka Soomaaliyeed si loo badbaadiyo midnimada iyo wadajirka dalka shirweynuhu wuxuu ogsoon yahay in xaaladaha abaareed ee dalka ay yihiin mid halis ah loona baahan yahay in xukuumadda iyo shacabka loo guntado sidii dadka ay saameeyeen abaaruhu loogu fidin lahaa gurmad degdeg ah shirweynuhu wuxuu meel mariyay go'aanadan kow wuxuu ansixiyay dastuurka midowga haybad qaran labo wuxuu ansixiyay barnaamij siyaasadeedka midowga haybad qaran wuxuu ansixiyay golaha dhexe oo ka kooban 111 xubnood wuxuu gudoomiyaha midowga haybad qaran u doortay inuu noqdo mudane Cabdi Farax Shirdoon Saacid wuxuu shirweynuhu isku raacay in mudane Cabdi Farax Shirdoon Saacid uu yahay musharaxa madaxweynaha 11aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee doorashada soo socota gunaanad shirweynuhu wuxuu u mahadnaqayaa shirgudoonka guddiga qabanqaabada iyo ergada guud ee midowga haybad qaran oo suurto galiyay hawshan ugu dambeyn wuxuu u mahad celinayaa shirku marti sharafta culimada haweenka dhalinyarada bahda saxaafadda bulshada rayidka ah iyo hay'adaha kala duwan ee amniga oo dhammaantood si habsami leh uga qayb qaatay shirweynaha oo noogu soo ilaaday guul waxaan doonayaa aniga qof ahaan inaan u hambaliyeeyo dhammaan midowga haybad qaran gaar ahaan jilba culusta dhabarkayga taagan oo midowgan buddig u ahaa waxaan si khaas ah ugu hambaliyeynayaa gudoomiyaha midowga ahna musharaxa madaxweynaha 11aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Cabdi Farax Shirdoon Saacid mudane
aad baad u mahadsantihiin